ما أنت فرين عرس بارودريا دولة جيبوتي هي دولة الصومالية مركا لقى صوب بلابو على مسار كيف ردي الله سعانو كدعي إلا يتضبات كرودا بيش إساق هرقيسك الصوت جداي waxay lahaayeen Djibouti iyana afgambi ku sameynayna jabad ba ka dhex sameynayna madaxweyne Ismaaciil Margele waan dilayna idaacadahooga iyo telefishinadooda waxa kala haayeen inay dagaalamayaan oo Djibouti ku soo duulayaan oo duulimaad Djibouti ku yihiin way sheegayeen maanta saakay sameeyeen duulimaadka sheegayeen dad Ciise ah oo beesha Ciise ka soo jeeda oo xoolo dhaqataa ayay ku laayeen meel loo yacadowdhow xuduudda Djibouti u dhow waxay la dhaceen rasaasta waaweyn ee shilkaha iyo dhashiikaha la yiraahdo dadkaad ka arkaysa xabadaha ay ku dhifteen dadka ay dileen u googay oo sawirradii baan haynaa dadkii iyagoo googay xabad qof lagu dhiftay ma ahayna waa rasaasta waaweyn waxa lagu dhiftay dadka waxa amar ka bixiyay ninka madaxweyne ku xigeenka oo nin u xanuunsanay yani waxa ay xanuun Ciise ayaa ka isaga hayo waa ninkii markii cajiladii horanaan lahaa war cirrow markaa tagayso anaga ninka naga tag waayo xanuunka ayaa noo muuqda waa ninkii seelac u soo diray dadka waa ninkii cuqaasha soo diray waa ninkii TikTokerska soo diray ee baabuurta soo siiyay ee way soo dalxiisayaan ninkii ayaa jooga leeyo cirrow waa maqayan hadduu xataa joogo qof nool ma cirrow waa oday xanuunsanaya ama yaraatay isaga laftiisu laakiin shicibka isaaq toddobaad kan oo dhan waxay lahaayeen Djibouti baan burburinaynaa oo duminaynaa cadha ay ka qaadeen laascaanood cadha ay ka qaadeen Djibouti waa laascaanood taageertay ayay waxa uu sameeyo marka anigu shalay iyo daraadba waan ka hadlay waxa war dadkii waxay ku soo maqan yihiin inaga Djibouti ay ku soo maqan yihiin jabad baa ka dhex sameeynaa beeleeyeen Ismaaciil Margele aan dileynaa bulo iyeeleeyeen waana reerka isaaq la waxa sameeynay waa beesha isaaq beeshii aan sheegayay way soo duuleen dadkii reer Djibouti ee xoolo dhaqatada ahaa ee deegaanka ku noolaa saaka lagu wabaristo wala laay waxa leeyahay jabhad baa nagu soo duushay waa dad Soomaaliyeed dadka halka lagu laynaya jabhad baa nagu soo duushayoo waan layneeleeyeen iyagu saas sheegaya waxa uu marxaati furaya inay jabhadi ku soo duushay beesha Samaroon baa uu marxaati furayso oo meel kasta iyo idaacad kasta oo furtaba waxay leeyihiin Samaroonkii dad ku soo duulay Soomaaliland aan ahayn ayaa ciidankii Soomaaliland la dagaalamay ciidan ma ahayn waa jabhad Soomaaliland waa beesha isaaq waxa weeyaan waxaan ay sameeyeen in laga jawaabo waajib weey ta koowaad dawladda Soomaaliya aanu sheegayna dawladda Soomaaliya waxaan leenahay dad Ciise ah oo Soomaaliya ayay laayeen jabhadii argagixisada ahayd ee Soomaali diidka ahayd ee ka baxday diinta islaamka ka baxday hatta murtadiinta ahayd ayaa dagaal ku soo qaaday dadka waa Soomaali diid waa argagixiso waa kuwa shabaab u soo diray xamar ee qarxiye iyagii way halkan Djibouti waa kuwa dad shiciba oo xoolo dhaqataa bay ku laayeen Samaroonkina waa marxaati furayaano idaacadihi iyo telefishinka markaa ninkii Samaroon telefoon haystaaba wuxuu leeyahay jabhad ku soo duushay Somaliland ayay isaaqi laayeen isaaqina waxay soo saareen in war murtiyeed ay leeyihiin jabhad ku soo duushay Ciise oo ku soo duushay Somaliland ayaan laynay oo dhulkii ka saarnay saas leeyihiin marka maxaa Djibouti iyo Soomaaliya laga sugaya Soomaaliya waxaan ka sugaynaa in dadkan la ilaaliyo oo idinka mas'uuliyadeeda idinka ayay idin saaran tahay maanta awood baa leediin oo diyaarada leediin waajibka koowaad waa idinka dadka wax la dhacay waa dhashiike iyo shilke ayaa la dhacay waana Ciise dartii waxa loo leeyahay dadkaas u dhintay waajib bay markaa idinku tahay Xasan Sheekh waajib bay ku tahay inaad wax ka qabataan ta koowaad dawladda Djibouti waajib bay idinku tahay inaad dadkani wax ka tidhaahdaan oo waxa ay sameeyeen wax leeg sameeysan tilka bitilka baa leedinka rabaa waxa leedinka rabaa inaad tidhaahdaan jabhad isaaqa oo Djibouti ku soo duulaysa ayaan laynay wayna caddo marxaatigiina annaga oo Soomaali oo dhan marxaatika in ilaahay Djibouti ku duulayna oo Ciise Afar baa islaaye Afar iyo Ciise waa dad wala idis dishay ma jirtay been bay sheegayeen
intana u jeedeen dad ciise laayeen marka maxaa la idinka rabaa Djibouti waxa laga rabaa dan aanad uga leexan kareen maanta taa ay sameeyeen inaad samaysaan inaad tiraahdaan jabhad isaaqa oo Hargeysa ka timiday oo Gabiile ka timiday oo ka timiday meesha maxay Berbera ayaa ku soo duushay Djibouti oo duqaysaan rasaastan dadkiina ay la dhaceen tuka weyn idinka haystee diyaaradihii baad haysataan ugu dambeeyay inaad duqaysaan aqalka madaxweyne ku xigeenka iyo aqalka madaxweynaha inaad duqaysaan oo dadkiina waa la laayay adu argoysan waajib bay idinku tahay inaad samaysaan bafal soonna waajib bay idinku too kama leexan kartaan maanta oo soo gashaan waa qasab waayo dadkiina baa la laayay shicibkii ciise la laayay samaroona oo marxaati furaya jabhadu ciise uu leeyahay oo tiri jabhad baan nahay oo ciidan baan ku duulaynaa oo hub sidata annagu ma naan arag Soomaalina ma ayna arag jabhad waxa la dhigada bursiya oo buuraha joogta oo banaanka joogta oo qoriya sidata oo waan duulaynaa le war aragna dad jabhada oo dad intay qabteen dilayana war aragna oo gada bursi ka mid yahay oday 73 jir intay dileen oo gacmaha ka gooyeen ayay halka laabta u saareen gacmaha ay gooyeen kuwa dilayna cajalada ku dul qabteen waxa leeyahay aniga dilayo adeer hay dilin buuro shan baan laabta kaga dhiftay nin samarooda saale nin dhalinyara oo ciise ah sidaas kala loo galay meel ay gargaar bari 20 nin oo rag iyo dumar gada bursiya ayaa dilayay waan haynaa sawirradii waan haynaa waliba fiidiyoo bay iska duubayaan markay dilayaan jabhadaha waxa sameynay beesha sabaroon bay haayeen ninkan imika waxaan sameynaya ciidamada u soo dirayna waa samaroon ونعيب عيسى هي يجنا وكلامها إمي كانوا يوم مرخات فرينا وعليه جبهة عيسى هي كوسود شيء جبهة عيسى صود شيء لين أو كوسود شيء سومالي لا جبهة دي بدولة دون لا تقالت مركب حياتها واجب كعيسى دي صار وحوي نكستو ساقة أم بدريس ستو أم بدر على ستة وبرايم تارجت موديه تا السميين أنا السميسان وي laba boqol dhulka idinka dhulka idin hiilinaya deegaanka 200 kilomitir bay idin dhex marayaan markay Gabiile tagayaan Hargeysa tagayaan idinka idin dhex marayaan de taa dhacday baa la idinka rabaa inaad samaysaan inaad wax dhowrataan la idinka rabo waa la idin laayay dadkii baa la laayay dad xoolo dhaqata oo reer baadiya oo waxba haysan oo deegaanka way waxa la xasuuqay oo saaqi laayay دي مركا قصب ويان وتلك بتلك جيبوتي واجب بيكوتاي صومالينا واجب بيكوتاي دادك عيساها بيشا عيسانا إن استدفاعان ووحا ما تدعي أنو مردا بدعين بالي دكربا دولة جيبوتينا وحا لقربا دادك يدين الدفاع وقريها لا دعي دادك الشعب كان داد ويا وباسوكيا وحا لا دعي إيه قوقوية دادك ما يواضر كتير ما يدادك سوي قوقوعين artillery ma huwa qori baabuur ka dhacaya la ruuxa dadka lagu laayay de kuwa diyaarada ka dhacaya haysataan kuwa diyaarada ka dhacayo ka way badaysataan diyaaradihii baad haysataan maxaad suugaysaan marka inaad iska difaacdaan ma inahayn jabhadan Hargeysa ka timiday beesha isaaqina iska difaacdaan weeyaan tiqoolada gada buursiyo marxaad furayso aydin dambayso لكن تكون أنا أسكت دفاعنا ويدوكين كوزو دولي إيش شيء إن دوكين قرحين أيان أو يدين دمين أيان أو يدين بابين أيان بيكوها الليين لبط الضباط بيوحكوها الليين تبت حمر وكلا يدين للدون أيان أرجع جيسة دي بين ماشر وأرجع جيسو والجبهات والجبهات وحكب حسنتها وحلو شرع جنودا وحلو شرع درة يكون صعوطة وكوي هاللي التلفزيون ذاك هاللي إذا عداك هاللي هو دقال ما إنه عيسى والله إن الهوي كون دت كني لا يعسوقي تمرك أم حاسوي نمرك إذا واحد يكون افتدت كن رصاص يكون افتن تيك ويند ما يستطيع دولة جيبوتي واجبة اللي ذكرها عود الصار وصلوا ونقصينا ذو جواب تام على قرب دولة جيبوتي الصومالي أنا وحلا قرب دت كلا لا يي إذا كان مسؤولة إلا حاسوقي إلا وجود تجي دجان كودي إيه حول دقطة هيد إيه عيلش بيها لوجو تجي إيه باسوكها لا دعي إذا كان مسؤول
جواب دق قال لي كسوية دولة الصوماليات بلغة سوية دولة جيبوتي لغة سوية عيسى لغة سوية جريد نيشن دفاعدان وإذا قال لي كسوية عيارته حقي إني تالله واحد كنت جواب لهيدين تلك بتلك هل كيلا إذا تابتي إذا كنا تابتان وي يجوا بشيلك إذا كنا فتنا كديارة ده كنا فتان بالا إذا كربا والعرة كنا فتان والمدعون حقين كنا فتان وهذا يستان أودي وحلا واحد دورة تايين يشيرين مانت إنا استدفاع دام بالا إذا كربا ولا إذا كنت صوت دولي دت كي نيبال لايي ما تدي نيبال لايي دت حورا دقتال لبابيي إنا تريحدان بالا إذا كربا إنا تكتش وابتان بالا إذا كربا نكاسانا أصابة عروح معنا أصابين يا مجرت ماشي واجبهد وحبا ما الأود ما العرو واجبهد ودقا سبرونا ودحر ضيا ودقا حريرة كيري ضد قد برسيتو صور حريرة كيري كنت قال الله ما إني حمالا ما دوني وحمال بان لا دوني يالي بورا من بقد برسا عيسى كحمالا بقول الجد بي كحمالا ما دلي كحمالا ما بوم بي كحمالا سيدابا دوكا قد برسي قادوك انت حريرة وتلاك عمالة وعندما وكانتها وانك حنوصنا يوي marka iisoo dahays dowranin hadad wadaragtan xaaladu halkay marayso guriini baa lagu weeyaa dadkiini baa la leenayaa jabhad baa lagu sheegayaa isaaq u xalaaleystay inuu dadkiina dilo oo jabhad buu ku sheegay sidiina sidoo kale u xalaaleysta oo jabhad argagixiso markhaati baan ka nahay oo Soomaaliya markhaati ka ah oo kuwa Soomaali qarxiya شباب يجا كم مدحة ويجي وي مركا إنه دفاعنا لكن واجب بيد كتاي وجيبوتي الدفاعنا واجب بيد كتاي واجب مقدس سيد كتاي عيارته حقي إنه الله جواب دق على ذي كربا ضد كارد تيراد أوهي لسان بالله ذي كربا نكستو إساقة أو لكن مريا أم بدريسة ستو أم بهوبها ستو أم بصبلا هذا إنك وحنو قرية إنه عدو إنه كواديه أيو إساق إنه قرية إساق وحنو قرية عيسى مركان النهاي إنه عدو إنه كواديهين أو يهين كوي هرقيسة كسود دولي قبيلي كسود دولي برعو إدت كأني كلها أي حدود جيبوتي وي استدفاع مركا عيسو وحقلوا أنا قولنا يا مجرتو إن استدفاعنا هو شرعي ووحش شرعي إن الدكين دفاعدان اسند دفاعدان قرق الله صوت ولاد دكين اللي قول دفتنا متكو